السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا qaaliga meel kasta joogta idin hawada nagala socota kusoo dhawaada channelkeeni xarunta cuntada caafimaadka walaashin shukri aadam buule soo dhawaada meel kasta joogtiin inagoo mahadsan inta maanta topigeeni isku soo noqonin waxaan rabaa inay naga codsado inaa haddaa nagu cusubta soo dhawaatid subscribe sameysid like garaysid share gareeya channelkeeni waaye inaga iska leh inaga laynii furay asxaabta soomaalida meel kasta joogta ayaa iska leh maanta topigeeni maxaa waaye asxaabta qaaliga ah topiga maanta dhinaca maskaxiyana waaye oo ku saabsan soo marka waxaan arkay dad badan markay la soo hadleen markaan arko dhinaca confidence-ka waa maanta asxaabta qaaliga topigana confidence waxaa laga wadaa qofka bini'aadanka inta heer uu isku qanacsan yahay intuu leegyahay dad waxaa jira waxaan arkay badan oo maasha allah tabaaraka allah laakiin iyaga markay muraayada isku fiiriyaan hoos ah qanacoodii sida iyaga iska aaminsan yihiin qofka bini'aadanka waxbuu iska aaminsan yahay dadka kale banaankan waxbay ka aaminsan yihiin laakiin waxay dad kale ka aaminsan yihiin wax muhiim ma aha waxa aad iska aaminsanta ayaa muhiim ah soo topigan maanta laba qodob ayaan kala qaadanaa part 1 waxa waaye waxyaalaha jabiyo qofka confidence-kiisa iyo waxyaalaha part 2 waxay noqon doontaa insha allah waxa kor u qaada iyo sida kusoo ceshin kartid qanaacadaada aad isku qabtid naftaada inay ku leedahay qanaaco isku kalsoon tahay kalsooni weyn kalsooniya af Soomaali kalsooniya la inta raadinay maanta dhan soo marka asxaabta qaaliga ah ilaa inta leg ayaa isku kalsoon tahay naftaada maxaa jabiya kalsoonida ugu horeysa waxa la jabiya asaaska kalsoonida waxa jabiya waxa weeye ugu horeysa la dhahay waa parentka laga wadaa waa waalidka cunugaas uu kusoo koriyo ayuu cunugaas ilaa 70 sano markuu leekaado waxyaalaha dhow qofka duu weynaado oo wax barto waa laga yaabaa inuu ka kor imaado oo iska dhaafo laakiin inta badan saameyn weyn ayay ku leedahay saameyn aad iyo aad weyn ayay ku lahaanaysaa soo marka parentka xaraha waalidka ilaahay khayr Allah siiyo waalidkeena Soomaalida ah hooyooyinka abooyinka waxyaalo badan culeys badan ay hayaan ilmo isficnaa ay la dhacaan oo la jabaan quraanka way baraan maasha Allah tabaaraka Allah laakiin hal wax yar ay arkaya naga hooseeyo waan fiicanahay inaas waxadan wax yar ee qofka uu ka halaysan yahay qof kale inuu sheegi karo waxa waaye dhinaca kalsoonida carruurteena oo ka dilnaa run ahaantii darrada isku sheegno waa Soomaali hadaan nahay dadka wax bartay ma sheegin hadda dadka xoogo way soo yar ilbixeen waxyaalaha ayaa la bartay wax la barasho dadkii wax isku dayaan dhinacaas inay iska dhisaan wax wiji fiican waaye laakiin dad badan anay la soo xiriira dadka waan yaabay dhinacaas marka u sii fiirsaday qofkaas waxa waaye kalsoonidiisa waxa ka soo jabtay markuu yaraa oo wax isaga lagu soo dhihi jiray soo parentka si ay ugu jabin karaan ilmahooda markay yar yihiin kalsoonida ta koowaad waalidka markuu yaray cunigiisa waxa ku dhayo kuwa weyn hadda ku dhaday ilmaha doqonaa tahay facaafiir waxay sameeyaan weliga heer ma gaaraysid awl bacanyaasa ay heed doqon xuntana dhaaf waxaas ilmaha ku dhahaysid ilmahaas meel gooni ayuu ku qarsanayaa markuu hadhow weynaado adult noqdo la dhahay wixii uu aaminayaa dadka waxyaalaha keena xitaa in markii carruurta gabdhaha la xumeeyo oo markii hadhow guursadaan ninkaas oo si xun u dhaqmo ay ka soo bixi karin ama iska celin karo waxa keenaya la dhahay waa waxa waalidka ay ku soo dhihi jireen laba qodob ayuu kala baxaan carruurta mid wuxuu noqonayaa kalsoonidaas hadda inuu qofkaas ku adkaado oo waxaas diido oo dhinaca positive ku noqonaya midna cunugaas way la dagaysaa noloshiisa dhan ayaa baabacaysa hadhow wuxuu ku noolaanayaa wixii lagu soo dhihi jiray markasta soo marka waxaan dhahayaa waalidkeena ilaahay khayr Allah siiyo waalidkeena ilaahay jannada ka waraabiyo hooyooyinka iyo abooyinka meel kasta joogaan waxaan dhahayaa ka fiirsad halka ilmihiina ku dhahaysiin hadalkaas wax badan ayuu ilmahaaga saameyn badan ayuu ku lahaanayaa meel kasta ay joogteen adduunka oo la soco weligiis hadduu xitaa wax barto uu la dagaaltamo laakiin markuu hadhow hadlo waxaas way soo baxayaan meel un baabugta talabaad waxa waaye oo keena kalsooni la'aanta ayaa la dhahay marka oo haddii gabadha nin qabto qofka ama nin haada ama naag haganaado partner qofka qabtiin hadduu qof af xun yahay isagana oo negative yahay qofkaasna kalsoonida uu la haraa because qofka ugu dhow ee markaas la hadlaayo ee la sheekeysanayo qofkaas hadal xun hadii markaas afkiisa ka baxaan qofkaasna uu qaadanaya kalsoonida ayuu qofkaas kale ka weynaysa kalsoonidiisa waxaan ka hadlaynaa kalsoonida waxa dhaawaca oo hoos u dhigan ka hadlaynaa waxa kale keenta dadka adiga ugu heeraysan haday yihiin saaxiibo haday yihiin walaalaha haday dadka kugu dhow markaas la macaamishid haday yihiin dad af xun oo qofkaas markaas wax ka sheega oo dhaawacayo kalsoonidana dhaawac ayaa gaarayso waxa kale oo keenaya la dhahay sida u dhigay sida adiga u labistid
dressing coat la dhahaa adiga hadaa tahay qof dhar fiican xiranin hadaa xitaa dhar fiican haysatid oo laakiin jecel wax jajaban oo foolxun badan xirtid ogo kalsoonidaada markasta hoos ayay tahay waxaasna way dhaawacda kalsoonida dharkan waxaa fiican in la iska hagaajiyo waxa kaloo fiican la dhahaa waxa kaloo kalsoonida dhaawacda ayaa la dhahay qofka markasta isoo hadduu qalad galay hadduu qalad gelin hadduu maanta dhan ku haayo dadka kale oo maanta dhan uu ku dhahayo sorry ama raali noqo waxbaan kugu sameeyey isana kalsoonidiisa qofkaas way dhaawacaysaa because weligiis ma lahaanayo qofkaas marka wax sameysay way fiican tahay diiniyan in xitaa inaad qofka dhahdid aad raali gelisid waa inuu qofka humble ahaado way fiican tahay laakiin haddaa markasta haddii lagaa qaldanin markasta baa lasoo taagantay dadka kale adiga maanta dhan raali gelinaysid taas waxay tusaysaa kalsoonidaada ayaa dhaawacaysa hoos ayaa usii wadaa waxaa kaloo la dhahay kalsoonida hoos u keenta ayaa lahay qofka biniaadanka ah in dadka isaga ku xagaarsan mise saaxiibadiis mise waxay ahaadaanba markuu sameysanayo maxaa la dhahaa go-aan kale isaga u gooyaan go-aan haddaa goosan karin dad kale go-aan ku gooyaan kalsoonidaada ayaa dhaawacmaysa kalsoonidaada meesha ka baxaysa waxyaalaha kale ee kalsoonida dhaawaca ay hoos u geeyay waxaa kamid ah ayaa la dhahay dadka markasta waxaa la dhahay haddaa waxaa la dhahay maanta qof ayaa maano kale iska soo qas shukri waa mahad abay maanta waxaa rabaa qofa maanta dhan wax i weydiisanay haddaan afkayga yaqaano bas haye yes aan aqoonin no taas kalsoonideeda ayay dhaawacaysaa mar waxaa jira la dhaho waayahay okay mar waxaa jira la dhaho maya ma samayn karo kala baro markas haddaa dhahdi yes taas meel xun ayay kula gelaysaa kalsoonadaadana way jajabaysaa weligaa bili-aadan ma bilis garayn kartid ama haddaa xitaa malab ku shubtid weligaa yani 100% ma ku dhahayan waa mahadsan tahay so inta dadka wax asxan waa loo sameeyaa laakiin meelo waxaa jiro xaduud oo qofka haddaa samayn karin dhihi kartid sorry ma samayn karo kadib markas la soo taagantay okay taas meel xun ayay kaaga ridaysaa kalsoonidaadana aad iyo aad ayay u dhaawacaysaa so marka waxaan dhahayaa hadda waxaan ka hadlaynaa part 1 waxyaalaha kalsoonida dhaawaca waa waalidka maxaa la dhahaa lamaanaha dharka xiratid maxaa la dhahayo kale kalsoonida waxa kaloo dhaawacda ayaa la dhahay haddii qofka uu soo maray divorce waxa la dhahaa ama ha ahaada nin ama naad ahaada laakiin nin cabadan soomaalida gabdhaheeda leecaan runtii la sheego markay banaanka uga soo baxdo dadkii hadalkii xum afkii ka sheegayeen kalsoonida gabadhaasna way dhaawacaysaa laakiin waxyaalo badan hadda part 1 ayaan ka hadlaynaa sida kalsoonida lagu kor loogu qaadana waan soo deyni doonaa hadda waa part 1 waaye part 2 waan sii wadaynaa so halkaas aan sii baxaya part 1 inagoo mahadsan hadda ka faa'iideen asxaabta qaaliga share gareeya like gareeya subscribe sameeya meesha nagala socotiin waa channelkeeni xarunta cuntada caafimaadka waana walaashay shukri aadan bule wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh